ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى للورى. أي داع قبلكم في ذا الوجود صح لا كسرى هنا لقيصرا. ربنا الله من سوى الله تبارك وتعالى inoogu nimceeyay diintan qiimaha badan ee islaamnimada kitaabka quraanka iyo sunnada nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi diinta uu ina siiyay waa diin qaali ah shay aad u qiimo badan waa shay aanan koobi kareynin macnaha iyo nicmada iyo qiimaha uu ku fadhiyo waa diin ilaahi tabaaraka wa tacaala أحكامتها يقابك أي كربت ضدكو إني أدقمان ودين وحسود اللي تري سوا ودين دحدحادة ودين ميزان أن جور كتشرين وحكم ميزان يسوا ودين باهي والبكتشوابيس ودين إلهي أسود الشيء ليبانت ابن آدم كاللبدا دارود بينه كل إيمان تنا إنه سنكو خسارن تدنبنا إنه سنكو خسارن وحيالها يسوب اللي ترتوحها كمد واللبدا كفدود أي سارت مد والبنا وحومضنا أي مريسيو السيسي وحاكمدا دارتن هذا أن كنا والله هاي هي مدة صوصعته أن كنا ولان دون دارت آخره لبدا النولود يمد والبوحي سيسي وحي مضنتهي وأنا لبنا النولود ولا مارمان أمنا وابن شوقنا منا وحن شك كتشرين إن أيضنا التجدون وحي دي إن لوجأه دارتن هذا أن كنا والله والروح كو كتسومو او كو خلدمو او مدي رسميغا اهيد او كو هلمامو كدبنا او نقدو اون روح تشيغيسي قرشيهيسي جدولكيسو كليه يحي ميدان هدا او كو نولي تلادبا اوغما جيرتو تدنبو سو سوعت انو ميدان تورتيسي خوغيسي وقتيسي اسو geeyo caabudo inta oo خدك يجيدك وادي شريعة دين وحكلو يديدي إن إلهي تبارك وتعالى دولكن كوركي سوحا أوردقي طيبات وناقة حلاشة فرها بدن عميرادة يدسمها دارتن انت لقاقو ودورك لقالو ووحي إلهي حلالي ليسك حرمو سيد السوفية النصارى أو كلة الدور كلا قالنا دين تنوادي دي طيبات كان إلهي حلاليينا كفى إذيست أو النصيب كوحي إلهي إذن كقري كقاتا لكن هكوكة سومين ميت كم مهم سنبه تشيرتي هنقطة مضنان تمدات سيني سان تضنبئي صوصعت معناها قيمها بدن بوحي كو خلاف سنتهي ديمها ابن آدم كمان تهست انتو ذا كالورا قار وحي حوق ساريان الدنيا ذا كقو ودور كقلو سوفيو ومريا قشنو أورا يحرو والدنيا ذا إيوانا قيد اسكحرم ونفت هذا عذاب هل كاسي ديمها قاركو داتكو ذا مرينيا قارنا آخر إيو رنكا إيو الروح إيو شقبكو مالهي muhiimadoodu waxa weeye cun oo dhereg cab oo dhereg seexo oo ka noolow dhiso oo waad joogi doontaa wahaakada waxaan halkaa ahayn ma yaqaanaan diintani waxay ku tiri marka tan aad joogtana wixii nasiibkaaga ka qaado ta soo socotana lagaaga sadroonaanin ta soo socotana ayadaa rasmiya ayaan lagaaga sadroonaanin صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كوح كمدا أيا واحد تجن جريها النبي صلى الله عليه وسلم مركزي ويدي النبي عبادة ديس مركي الله ورمي النبي وحل جوا استاجا حل جوا سحدا مالمها والصوم مروة إسكا أفرا النبي عبادة ديس بالله شيء مركزه واحد هذين حوجا ويلا يرى يراتي مركزه واحد أنا وحجين شوقنا
mid baa soo booda wuxuu yidhi aniga maalin oo dhan waan soomaanayaa mana afurahay midna wuxuu yidhi aniguna habeenkii oo dhan baan taagnaanayaa maba seexanayo midna wuxuu yidhi anigu dumarkaba guursan maayo maba rababa midna wuxuu yidhi aniguna hilibkaabaan iska xarimay hilibba ma cunahay warkii baa nabiga gaadhay sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi war ma idinkaa warkaa waxaa yidhi haa khayrun bay u jeedeen markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam horta ilaahay anaa idinku aqaana buu yidhi anaana idinku cabsi badan anigaa ilaahay idinku aqaana anaana idinku cabsi badan iyadoo ay saas tahay haddana waan guursan dumarka hilibkana waan cuni xilli waan seexan habeenkii xillina waan tukan maalmaha qaarna waan soomi qaarna waan iska afuri jidkaygaa ninkii ka leexdana iga mid maaha buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh dayibaadka ilaahay xalaaleeyey ninkii ka dhex baxay oo iscadaabay jidkii nebi maxamed ma hayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii noloshiisa iyo wakhtigiisa mooday uun daartana la joogahayaaye ku nafbax oo wax damboo soo socdaba taladiisa aynan ahaynna kaasi warkiisa iska baddaa waa dariiqadii mulxidiinta iyo zanaadiqada iyo gaalada waa waxaa la doonayaa marka si isu dheeli tiran in aad labada daarood miisaankaa la saaray inaad sidaa ugu socoto qur-aanka kariimkaa baa rabbi tabaaraka wa tacaala macnaha ku faahfaahiyey wuxuu rabbi qur-aanka kariimkaa ku sheegay laba qolo waxay leeyihiin allah waxaadna siisaa daartan adduunyona sii bas ilaahu carruurna sii oo xoolana sii oo caafimaadna sii oo muxuu ahaye guulna sii oo awoodna sii waa xaggee daarta aakharo may daarta adduunya dheh daarta adduunya waxba xaggaa uma yaallaan qolo kalaa rabbi daba dhigay oo dhahaysa ilaahu tanna middeeda wanaagsanna sii waa daarta adduunyo ta dambe ee soo socotana teeda wanaagsanna sii aakharana naarta allow naga ilaali kuwaasuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala nasiib iyo qayb bay leeyihiin waa dad nasiib badanoo waxay shaqaysteen bay ajir iyo abaalgud ku leeyihiin markaa u fiirso adduunkanna ilaahu tii wanaagsaneedna sii aakharana tii wanaagsan qalbigooda iyo hamigooda waxaa ka muuqda inay labadaba danaynayaan wahaakada sidaasaa la ruuxa muslimka sidoo kale rabbigeen tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu tilmaamay rag uu aad u ammaanay dad buu ammaanay wuxuu rabbi sheegay tabaaraka wa tacaala guryihiisa waa masaajida alla uu idmay in kor loo qaado la dhiso la camiro waxaa ilaahay ku xusa guryaha dhexdooda raggaasi maxay sameeyaan raggaasi rabbi wuxuu yidhi ma mashquuliso tijaaradu beeca iyo wax iibintuna ma mashquuliyo muxuusan ka mashquulinin ilaahay dikrigiisa kama mashquuliyo salaada toosinteeda iyo hagaajinteeda iyo ilaalinteeda kama mashquuliyo sakada bixinteeda iyo xuquuqda xoolaha kama mashquuliyo sababtayna uga mashquulinayna waxa weeye waxay ka baqayaan maalin ay quluubtu isrogrogi doonto iyo indhuhu labaduba arag iyo quluubtuba ayna meella ku sugnaanaynin waa maalinka waxaan aynu arkayno dhan isbeddel lagu samayn doono oo buurahan iyo dhulkan laysku garaaci doono oo samadii dildilaaci doonto oo makhluuqaynu arki jirnay kuwii ugu xoog badnaa saamayn weyn ay ku imaanayso maalinkaa isaga ah oo dadku inayba sarqaansan yihiin aad moodayso maalinkaasoo qalbigiina meella uusan ku sugnaan indhihiina kolba meel ku dhacayaan maalinkaasay ka baqayaan si ilaahay tabaaraka wa tacaala abaalgud wanaagsan u siiyo waxay samaynayaan waxa ugu fiican loogu abaalmariyo allah tabaaraka wa tacaala u fiirsada marka ma dhihin allah tabaaraka wa tacaala raggaasi ama dadkaasi ma ganacsadaan ma dhihin wax ma iibsadaanna ma dhihin suuqa ma tagaan ma dhihin ma xamaashaan ma dhihin ma uusan dhihin ma beertaan xoolo ma raacdaan ma dhihin laakiin rabbi wuxuu tilmaamay inay tijaaraystaan oy beeca iyo shiraha ku mashquulaan laakiin taasaa waxayna ka mashquulinin waajibkoodii diiniga ah ammaantoodu marka waxa way loo soo jeedinayo
وإن أدون كودي آخرة دي سود اللي ترين ومركي تي آخرة ما دنا سد لي بحبي كقادنا يان تودي الدنيا مركي تي ما دنا نين أمضى بفرديان من الدور سنيان شحاد مي قانان كعمها مهور صدان مجتمع هذا عريس كمعها لكن ودد وحصو صار لوا حبي صو صاريان جهدي يديد بي بحنيان نلشودي دبريان iyagoo sidaasa haddana tii aakhara markay timaado haba yaraatee wax way loogama sadroona oo safka hore kaga jiraan taa way midka laga doonayo laakiin ma samayn kartaa way ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligiisa iyo tawfiiqdiisa waqtiga uu ina siiyey waa u qaybsami karaa inaan daartanna lagaaga fiicnaanin oo wixii ilaahay kuu qoray aad ku hesho تدنبنا أن لقى سترونان لكن دلال بي أبهانتها بعد توفيق الله تبارك وتعالى ربي جان تبارك وتعالى سيدو كلا وحوش شيء ومعناها استقونا كو إيمانا يمكنني كلا ديجري قارون ونبي موسى وقت جيسيئها نين كبري وحولا بلنبوها وأتاجر لماذا يحولوه أي مضح مرين ووحوصنا أهين اسمه دي تلقي بالتالي مركو كبري وإسقاط قاضي waxay ku yiraahdeen wareeda qaaruun waxa ilaahay ku siiyay daarta aakhira ku raadi tan aad hadda joogto wixii ilaahay kaaga qorayna ha halmaamin sidii ilaahay kuugu ihsaan falayna khalqiga u ihsaan fal yani kalima aad u miisaaman waa ibtaqi fima aataaka Allahu daar al-aakhirah wala tansa nasiibaka min ad-dunya لكن قارون ميل بالو وتيو وركي وحبكم قادن مهمة وحويان كلمة داس آيات كاس أي اسكو ميشا مريا حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه هدان وكعنه الحديث بينك قاب سنين حديث كفي صحيح مسلم غير كويمت صحابي قال هذا حنظلة الأسدي وحوها رقي وحي قوري شري ومركو القرآن كسود يا وحي النبي صلى الله عليه وسلم كقوري شري وكمدها وقرالك يقاني wuxuu yiri Abu Bakar ba maalin maalmaha kamida ila kulmay buuri anagoo soconaan iska hornay isla kulan markaas wuxuu yiri kayfa anta ya Handala war Handala bal waran seeta xaalka ga waran waxaan ku joogay buuri Handala waa munaafiqoobay munaafiq baan hay ha malaha Abu Bakar wuxuu filahay inuu reerkii iyo caruurtii iyo la iska warsado uu ka waramo asaguna tuuga muhiimsan buu ka hadlay Handala hada taqaanay munaafiq buu noqday buu Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu warka wuxuu subhanallah war maxaa leedahay warsee wax kaayeen markaas wuxuu yiri inaan munaafiq ahay baan ku sheegi daliilkeeda dhayso nabiga markaan la fadhino salawaatu rabbi wa salaamu alayhi in la joogno oo uu nawaaninayo oo jannada iyo naartii uu xusuusinayo waxaad moodaa buu jannada iyo naartii inay naga hor muuqdaan khabarkii mucaayanu ba isu bedelayba mucaayana qalbiga ah markuu nabigu noo sheego noo sharxayo hor fadhino waxaad moodaa naartii iyo jannadii inay hor tanadaba ka muuqato dareenka iyo qalbigu isu bedelayo iyo khushuucda iyo xaaladda isdiyaar garowga aakhiro xaalkii markaan intaan nabiga agtiisa ka soo tagno caruurtii iyo xaasaskii iyo hantidii wixii markaan u dhex gallo wax badan oo waxaan xusuusnayn kamida markaan nabiga la joognay waa halmaanay qalbigii waa ka baxay munaafiqna maxaa lagu yaqaanaa markuu halkan joogana waa xaal qalbigiisu meel kale markuu tagana qalbigiisa iyo xaalkiisu waa ka gedisan yahay saas daraadeed markaan nabiga hor fadhinana sibaana markaan xoolihii adduunyadii dhex galana isbedel baa yimid soo munaafiqnimo ma munaafiq baan ahay Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wardaa wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay annaga laftanada waan haysataa birtaas oo kale laftayda ay haysataaba haday munaafiqnimo keenaysana aniguna munaafiq baan noqon waa markaasaan israacnay buuri nabigaan u tagnay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markaasaa waxaan idhi buuri ya rasuulallah Handala hadalka bilaabay rasuul ilaahayow Handala munaafiq buu noqday munaafiq baan ahay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wama dhaaka war maxay tahay maxaa kugu kalifay see wax u jiraan
markaasuu sidii ugu sheegay rasuulillaah markaan kula joogno naar iyo janno aad xusuusinayso hortanada inay ka muuqdaan baad moodaa markaan ka tagno adduunyadii iyo xoolihii iyo xaasaskii carruurtii dhex galana wax badan baa isbedelay halmaanay markaas nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ilaahayga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haddaad daa'imi lahaydeen markaad ila joogtaan sida aad tihiin haddaad daa'imi lahaydeen dikriga ilaahay iyo xusuustiisana aad daa'imi lahaydeen oo marnaba aydan halmaanteen malaa'igta ayaa idin salaami lahayd oo gogoshiina idinku imaan lahayd oo idinku salaami lahayd jidadka idinkoo marayana way idinku salaami lahayd maxaa yeelay dee markaasi bini aadan basharba waad ka sara marteen bini aadan weligii iyo allihii cibaado iyo dikri iyo xusuus alle ku jiri karaay male ilaahayba saa uma abuur laakiin hadday taasi suroobi lahayd malaa'igtaaba jidadkii gogosha idinku salaami lahayd weliba salaan assalaamu calaykum oo afka ama way idin gacan qaadi lahayd malaa'igtu idinkoo arkaya intay idin timaado idin gacan qaadi lahayd taasi marka ma suroobi kartee saacad iyo saacad xandalow buu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam saddex goor buu ku celiyay saacad iyo saacad waxa laga wadaa saacad adduunyadaada beertaada dukaankaaga carruurtaada muxuu ahay xamaalashadaada wahaakada saacadda xigtay waqtiga kale aakhiradaada jannadaadii daartaadii rida alle salaadii quraan akhris diinta u shaqaynteeda dacwada jihaadka wixii ilaahay tabaaraka wa taala aakhiro accountigeeda ku gali lahaa waqtiga kalena ku bixi waqtina adduunyadaada waqtina aakhiradaada miisaan caadil ah oo aad u qiimo badan way maxaa ka dhalanaya tanna inaad ku liibaanto taana ku liibaanto tanna inaad ku liibaanto taana ku liibaanto laakiin mushkila waxay kugu dhici markaad labada kafadood mid u badato haddaad midun u badanaysana kafada aakhira u badan lianna tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون دارت آخرة أيا نرش قبتا هذا يبيه نرش حقيقي وامد آخر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة نبي هذا الكيسيبوها نور لي مجرت أنت آخرة هذه هم جاجي مروك هذه وقت جاو ميل وبضنا هل كهوبت أما ميدن صومها وحي الله كاج حلاليك قاض ربنا تبارك وتعالى القرآن الكريم كمعاني ذا آيات كتوصي وفربدين أحاديث النبي كتوصي أنا وفربدين ما أنت وما بدنا ضدكم إن الدنيا ذا كجو أنا دور كجلانو سيد الصحابة قاركوا النبي كل هذين رسول الله يو أنا جا إن حنيها إيه حبين كترن كب إسقيان رواي إيه فصح ورم حد يسوي إنه جو رواي أدون كدن كجو ما أنت هلك أنت أصعد وان جو أينا الدنيا ذا كجو أينا ويرتاح لكن مشكلة ذا إنها هيسته هي مصيبة ذا إنها هيسته ودن ككله أو الدنيا ذا عبودي جديدة زهدي بعد انتي أو حلالكو قابس شدة ذا لمتي أو وحي الدنيا آخرة ذا أبا يراضي أو دتك وحي النقدين تنافس الدنيا إن لقلو أو قاركود أي قارن هير أي الدنيا ذا عبودان أو يدا الاسكود له أو يدا لقوع اللوبه أو يدا الاسكوبا بإيو أو وح آخرون لا إلى ليبا أين تشيرين كفدا سالوبتي ورا الله صون نقضو جيدكي صحدها إيه وسطية دي استقامة انت لغو صون نقضو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ين لك تسومن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحان